doorashadan doorasho caadi ma aha doorashadan waa doorasho agla fiiriyo wadanka waa mid la yiraahdo waa doorashada kala guurka waa madaxweyne ayaa guuraya oo xilkiisa wareejinaya madaxweynaha haduu guuraya marka gobol kasta miiska wuxuu soo saaran waxa dan u ah iyo waxa dhibaatooyinka la gaarsiiyay dadkeen dhibaatooyinka aan la marnay tirakoobka gobolka Waqooyi Bari balanbala baa laga dhigay 35 maantana dadka kuuraha ka goosanaya balanbala waa 30 ardayda caruurta waa 26,000 balanbala iyo lagdheera iyo wajaar iyo mandheera ayaa tirakoobka ummadda Soomaalida ayaa ka soo yiri shanta cunugoo ninkii dhalay waxa damcay in loo xisaabo laba cunug naar dhaweeyna dawladda tirakoobka anaga yareynaysa waxay soo shaacisay inay gobolka Waqooyi Bari uu yahay meesha fertility rate ama dhalmada ay u badan tahay wadanka marka khilaafka arkaysid waxa kamid ah waxa la yiraahdo extrajudicial killing dadka la baxayo hooyooyinka wiilashooda iyo ragooda iyo walaalahooda la baxay ama ay maqan yihiin ama la dilay waa in lagu xisaabtamo dadka loo malaynayo inay waxa ka dambeeyeen iyo waxa ay wataan waa in la dooranin maadaama ay dawladda bulshada Soomaalida u baahan codka aad ridi doonto waxa u baahan gobolka u baahan codkaada waxa u baahan hooyooyinka masaakiinta codkaada waxa u baahan culumada codkaada waxa u baahan dhalinyarada in lagu difaaco marka annaka laajiin manihin wadankan waa deganahay laan dheer baan ka nahay laakiin Soomaalida waxay tiraahday rikasta shalalka is dhigto yaa lagu qalaa ummadda iyo diinta shalal munaasib ha dhigina Soomaalida waxay kala kuma mahmaada nin kasta ceesaantiisa ceelka geysa madaxda siyaasiyiinta xisbiyada badan waa inaan doorano ninkii diyaar u ah ceelkiisa